dadka uu Ilaahay wax siiyey ma danayaan inta badan dadka masaakiinta ah ee wadooyinka hareeraheeda iska jiifa. hase ahaatee waxyaabo badan ayay u galaan oo faa'iido leh bulshada ay ku dhex nool yihiin dadkaasi darbi jiifta ah. bal qisadan ila daawo sheekadan iyada oo dhammaystiran. ninkan waxa uu hadayaa gabadhan isaga oo sirsiraya. gabadhii dhashayna oo hooyadeeda ahayd waxa ay ku mashquulsan tahay taleefanka. hase ahaatee nin miskiin ahaa ee darbi jiif ah ayaa u soo istaagay wuuna u sheegay waxa uu leeyahay gabadhaadii ayaa la sii wataa. waa ay diidaysaa, waxay tiri bax naga tag. waa uu iskaga tagay. sidaas ma uu ku joogsanine ninkii ayuu soo daba kacay si uu u fiiriyo halka uu aadayo. waxa uu meelo isku qariyaba ugu dambayn ninkii meel ayuu yimid. gabadhii ayuuna baabuurka ku riday. waxauna isla markaa doonayaa in uu soo raadsado wixii uu ku dili lahaa gabadha si uu keliyaha iyo beerkaba kala baxa. dad ayuu wacanayaa, ninkii kalena sidaa arkaysaan waa uu u gabanayaa. waxaanu isku dayayaa in uusan ka baxsanin oo u ogaado meel alla meeshii uu jaani cirib dhigo. markii ninkii uu baxay wuxuu u imaaday gabadhii oo waxba aan ka warqabin. waxa uu leeyahay fur daaqada, albaabka hoos ayuu ka xiran yahay. waxa uu leeyahay fur gaariga. markan kaarta ayuu ku fikiray. markii gabadhii ay ka furi weysay waxa uu ku fikiray in uu ninkan dhib u geysto oo uu mashquuliyo, kadibna uu gabadha la baxsado oo uu u celiyo maamadii dhashay gabadha. ninkana taleefon ayuu ku xeel dheeraaday. isaguna weli kaarta ayuu ku fikirayaa iyo wixii uu samayn lahaa. xaalku waa uu cakiran yahay. waan arki doonaa bal ila daawada waxa uu sameeyo. ninkaas ka mid ah dadka masaakiinta ah waxa uu arkayaa ninkii oo la soo baxay midi yar islamarkaana doonaya in cunugtii uu ku qalo. ninka ayaa soo cararay. waxauna ku fikiray sidii uu ku badbaadin lahaa gabadha. meel dukaan ah ayuu soo galay. waxauna soo qaatay wax markaasi u eg waxyaabaha dadka lagu halleyn kara. waxa uuna doonayaa in uu dharka kaga halleeyo si uu uga faa'iidaysto inta uu mashquulsan yahay oo uu dharka soo dhaqanayo. waa kan dharkii ayuu uga halleeyey. ninkii waa uu xanaaqay. waxa uu leeyahay maxaa naga tag, waxaan muxuu ahaa ayuu leeyahay. ninkii waxaa ku halaawday boomaatadii uu ninka soo qaaday ayaa ku halaawday. waxa uu aaday ninkii si uu iskaga soo dhaqo. meel musqul ah ayuu galay si uu iskaga soo dhaqo. hase ahaatee ninkii waa uu soo cararay. gabadhii ayuu u imaaday. jaaniska ayuu ka faa'iidaysanayaa. wuxuuna leeyahay hoos fiiri, fur daaqada naga fur ayuu leeyahay. daaqada fur. ninkiina musqul ayuu galay uu iska soo dhaqayaa. ninkii miskiinka ahaana jaaniska ayuu ka faa'iidaysanayaa si gabadha uu badbaadiyo. ugu dambayn gabadhii ayaa waxa ay isku dayaysaa in ay furto. hase ahaatee ninkii waa uu soo degdegayaa. asagana waa uu soo dhow yahay. gabadhii nasiib wanaag waa ay haleeshay albaabkii wayna furtay. hase ahaatee ninkii ayaa ku soo socda oo ku soo dhow. ninkii waxa uu fiiriyey baabuurkii. waxa uu arkay oo furan iyo gabadhii oo lala baxayo. waa uu soo cararay. waa uuna soo bursaday. waa uu soo ceersaday. ninkii isaga ahaa, ninkii miskiinka ahaana sidaa arkaysaan gabadhii ayuu la cararayaa. waa uu sii cararayaa weli. asaguna kama harin. waa uu daba ordayaa. hase ahaatee ninka miskiinka waa uu dadaalayaa. wuxuuna u wadaa meeshii uu ku ogaa gabadhii hooyadeed ahayd ee taleefanka ku mashquulsanayd. waa uu raadiyey. waa uu la'yahay. hase ahaatee meel fog ayuu ka arki doonaa. waa uu soo cararay. wuu arkay nasiib wanaag meel fog ayuu ka arkay. hase ahaatee nasiib xumo ninkii ayaa ka hor yimid isagoo aan gaarin gabadhii halkii ay joogtay. waxa uu leeyahay maya maya. isaguna waa uu dilayaa. waxa uu la soo baxay tooreedii. gabadhina ninkii gadaashiis ayay ku dhuumanaysaa.
torriidii ayuu la soo baxay, ninkiina waa uu dilayaa. ninkii miskiinka ahaa sidaas ayuu ku dilayaa oo dhib ayuu ku soo gaarsiinayaa. hase ahaatee ninkii miskiinka ahaa gabadhi ayuu leeyahay carar. ninka kale markii uu ka daba carari maago lugta ayuu ka qabanayaa si uusan u gaarin gabadha yar ee miskiinta ah. gabadhina hooyadeed oo weli taleefankii ku mashquulsan adduunyana aan ka warqabin ayay hoosta ka gashay. ninkana waa uu cararay ee tuugga ahaa. hooyaduna ma aynan dareemin in gabadheedii la xaday. waa dhibka uu leeyahay taleefanka. ninkii miskiinka ahaana kama warqabto. halkaas ayuu soo shaqeeyay. hase ahaatee ma jirto cid ka warqabto miskiinkii. halkaas ayaana lagu dilay isaga oo wax wanaagsan u qabtay bulshadiisa. wuxuuna ka mid ahaa dadka masaakiinta ah ee derbijiifta ah. hase ahaatee cid ka warqabta ama og ma jirto. dadkao dhan waa iska dulmarayaan. qof kasta oo goobta soo mara ninkan waa uu iska agmarayaa. hase ahaatee ninkan ayaa u diirnaxay islamarkaana u istaagay. waa uu fiirinayaa. waxa uuna wacayaa gaari ambalaas ah si meesha looga qaado. qisadan waxaan ka faa'iidaysan karnaa in la caawiyo dadka